guud ahaan dalkani Kenya wasiirka waxbarashada Fred Matiang'i ayaa maanta shaaciyay natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalkani waxaana ardada kaalimaha wanaagsan galay kamid ah Soomaali gaar ahaan ardada dhigatay iskuulka Don Bosco oo kamid ah iskuulaadka hoos yimaada Ansar Sunna Group Trust maamulka ardada macallimiinta iyo waalidiinta iskuulka sare ee Don Bosco ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin kaalimaha ay galeen ardada dhigatay iskuulkaasi waxaana warbaahinta la hadlay Sheekh Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadam Sheekh Jiir oo ah maamulaha iskuulaadka Ansar Sunna waxaan ilaahay kumanaan jeer ooga mahadcelinaynaa natiijadii wanaagsanayd oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ardaydeena siiyay oo imtixaanadii foonfoorada ahaayoo saaka wasiirku ku dhawaaqay ardaydii eeda gashay waxaa ka mid noqotay labadan wiil oo hareeraha iga taagan Badruddin iyo Muhammadul Amiin waxay noqdeen ardayda aadka u iftay oo keentay A-, ninkanina wuxuu keenay 79 ninkanina wuxuu keenay 78 waa ardayda Kenya ugu sarreysa maxay ahaydee dhowrka maxay ahaydee 100 oo ugu sarreysa wadankay ku jiraan 142 ee keentay 2000 iyo dhowrna waxay keentay A-. labadani waxay ka mid yihiin marka ardayda boqolaalka ugu sarreysa Kenya oo dhan waxayna ku galeen iskuulka la yiraahdo Don Bosco Secondary School oo soo hoos gala mu'assasada Ansar Sunna التعليمية labadan arday oo dhigatay iskuulka sare ee Don Bosco kana mid ah ardada kaalimaha wanaagsan galay ayaa iyaguna waxa ay ka hadlayaan dareenkooda alxamdulillah wa dadaali jirnay ilaahay nama dayacin dadaalkeenu alxamdulillah nagu sii maakska keen mustaqbalka waxa rabay inaan noqdo dhakhtar insha Allah waxaan ka imaaday madrasada ama iskoolka Don Bosco Secondary School maanta waxaan helay natiijadeedu oo ahayd 79 ama 79 points oo A- hadii loo fiiriyo dhinaca qiimayn ahaan grade ilaahay baan ku mahadinayaa taas waalidiinteeda Arxamo Umar iyo Nuur Shiicali waxaan oo aabihii ah waxaan kale ku mahadcelinayaa macallimiinteeda iyo sidoo kale ardaydan isku fasalka ahaynay Xasan Sheekh Umar